kulan wacan oo wanaagsan idilkiiba ku soo dhowaada channelka Hayla Media. Dhegaystayaal ikhyaar soo dhowaada. Caawa waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo insha Allah tacaala in aan xayawaanaadka sharci islaamka uu ogol yahay in la dilo laguna dilo meel kasta ay joogaan, xataa haddii aad salaad ku jirto inaad dili kartid adiga waliba salaadaada wata, oo xataa hadday qiblada meel aan ahayn ay aadaan oo ay u cararaan inaad ku dili karto. sharciga shareecada waxay ka qabto ayaan rabaa caawa inaan ka sheekeeyo. xayawaanaadkan waa xayawaanaad inta badan shareecada waxay u fartay in la dilo. waxa ay yihiin waa kuwo daara ah oo dadka dhibaateeya, oo sun iyo dhibaato iyo waabay la fadhiya ayay yihiin. sidaa darteed ayuu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam ayuu wuxuu yiri ha la laayo xayawaanaadkaasi. tiro mucayan ah ayuu sheegay. tiradana waa tiro dadka bini'aadamka dhibaateeya. marka xayawaanaadka ayaan doonaynaa in aan caawa insha allahu tacaala aan soo qaadno, oo qof kasta meeshuu joogo haddii uu xayawaanaadka u arko uu ku dilo. maxaa yeelay diinteenna xaniifada ah ayaana fartay in la dilo xayawaanaadkaasi. sidaa darteed xayawaanaadkaasi waxay yihiin waa toban xayawaan weeyaan. way kasii badan yihiin, laakiin kuwana waa kuwa shareecada ay fartay in la dilo. kuwana waa kuwa soo hoosgalaya, way soo hoosgalayaan dilkooda ayay maartay. xayawaanka koobaad waxaa waaye wax loo yaqaana dafada. sababa awgeed ayaa loo xaram yeelay. hadda ka hor ayaa waxaa dhe xilliga maka ayaa gabadh miskiin ah oo addoon ah ayaa reer u shaqaynaysa. gabadhiiba markaa yay waxaa ku dhahay yay ka qaadatay dahabi, wax noocaas ayay qaadatay. gabadhii markaas si xun ayaa loo dilay, xataa la cawradeeda la yidhi way ku jirtaa ka soo saara la yidhi ayaa la sameeyey. bahashani markaasi sidaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo qof kastana hilibka xataa dadka way ka daftaa, gacantay jartaa. marka xidaa ayaa qur-aanka axaadiida nabiga calayhi salatu wasalaam ugu soo aroortay. marka afka carabiga xidaa ayaa la yidhahdaa, alxidaa dafo ayaa la yidhahdaa. qodobka xiga labaad waxaa la yidhahdaa al aqrab ama hangaralaha. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dhihi jiray hangaralaha ha lagu dilo fil xilli wal xaram. xataa xaramka in xayawaan lagu dilo aysan bannaanayn waa lagu dilayaa. ninka loo yaqaano caqrabka ama hangaralaha, aleelaalaha ama dabaqalooca. qodobka saddexaad waxaa ka mid ah xaya ama waxaa loo yaqaana abeesada. abeesadu waa bahal waabay badan oo ninkay ku dhufataa halis ayuu leeyahay. marka iyadana waa la dilayaa, oo fil xilli wal xaram, masjidka xaramka ah iyo bannaanada intuu waa lagu dilayaa. qodobka xiga afraad waxaa ka mid ah baasha loo yaqaano jiirka. fa'ra baa lahaa af carabiga. jiirka waa la dilayaa fil xilli wal xaram. kutubtuu googooyaa, xarkaha ayuu jarjaraa, dharka ayuu googooyaa. marka guryahana wuu galaa, qudaarta wuu kaa cunayaa, dukaanka wuu kaa maartay wax kasta wuu riiqayaa. marka waa xasad, waa la dili markaasi. qodobka shanaad asagana waxaa ka mid ah eyga, gaar ahaan eyga dad cunka ah. nabigana wuxuu kaloo tilmaamay calayhi salaatu eyga shaydaanka ah oo eyga madow waa shaydaan ah, ha la dilo. ey madow meeshaad ku aragto waa la dilayaa. magaalada madiina nabiga calayhi salaatu wuxuu dadka amar ku siiyey in eyda la laayo ilaa ay ka sigtay inay dabar go-aan. markaasuu ka soo reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam eyda aan dadka cunka ahayn lagu xamaashay ee lagu shaqaystay, ugaadha ku qabtay, beeraha ku raacaya ee maartay xoolaha waardiyeeya. ayakana waa la diinaya kuwaas. laakiin kuwa eyga madow iyo waa shaydaan buu weliba ku matalan nabiga calayhi salaatu wasalaam. eyga madow waa shaydaan buu yiri. marka waxaa kaloo ku xiga ninka loo yaqaano tukaha meeshii lagu arko asna waa la dilayaa. sababtoo waa mufsid
caanaha iyo weelasha intuu qarka kaga istaago ayuu caanaha daadinayaa. saa darteed waa mufsid, waa la dilaya asagana. waxaa ka mid a marka tukahaas marka weliba aadka u sii daran ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sii adkay in la dilo waxaa ka mid a midka cunaha cad iyo qoorta. midka qoorta cad ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam asagana ayuu amray weliba in si gaar ah kaas loo sii beegsado. waxaa ka mid a waraabaha, ruwaaga waxa loo yaqaano. ruwaaga laba u qaybsama. ruwaa oo magaalada Maki iyo adu Xijaas laga helo oo la cuno hilibkiisa waa la sheegay, kaas kuma jiro markaa. laakiin ruwaaga kale waa xasad, xoolaha calooshu ka galayaa, naasuhu ka soo jaraya, calooshu ka soo ridaya, markaa waa xasad, asagana waa la dilayaa. waxaa ka mid ah baalka yeyda baasha loo yaqaano, iyadana waa mid lamida weeyaan. kolle iyadana waa taqaanaan, iyadana waa la dilayaa, meeshii lagu arkana waa la dilayaa. waxaa ka mid a baalka loo yaqaano shabeelka asagana waa mid asagana xasad ah oo dhibaato waa arta xayawaanaadka sidii u galayo, adigana kuma naxariisanayo, waa la dilayaa. waxaa ka mid a libaax ayaa ka mid a. libaaxa asagana waa waxyaalaha dadka dhibaateeya ee xoolaha dhiba ayuu ka mid yahay. marka hadda inkasta oo caalamka maxaan ku rahdaa ilaahay subxaana watacaala aaladda hadda adiga aragtaan oo kale ummadda uu maarta arto uu dadka xoolaha uu halaagayo waa arteen, asagana waa la dilayaa. qodobka xiga ee soo xiga waxaa weeyaan asagana la dilayo baasha loo yaqaano wasaqa waxaa la yidhaahdaa bahal guryaha derbigooda qabsata weeyaan. baashan weeyaan oo wasaqada loo yaqaano qorotada ama qallajista ayaa loo yaqaanaa. waxaa kaloo ku xiga oo iyadana ku jirta bahal loo yaqaano kabatir oo xayawaan asna khatar ah oo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu riday way ka qayb qaadatay baa la yidhi dab huritaanka. bahal derbiyada ku ordaa oo weliba meelaha duurka ee baadiyaha ayay aad uga ordaayo. waa bahal aad khatar u ah oo sun khatar ayay leedahay. haddii ay ku asiibto halis weeye, very danger weeyaan. inta ayay ku yihiin xayawaanaadkii. marka waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin, ku soo dhowaada mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.